madaxweyne goboleedyada waa la og yahay kii president waxaa ah madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni number 1 waaye madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni is more powerful than president Farmaajo يعني hadda la joogo siyaasad game politics hadda la ciyaaro siyaasadda Soomaaliya hadda la isku miisaamo madaxweyne Farmaajo oo dhinac ah iyo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni oo dhinac ah siyaasadda Soomaaliya waxaa miisaan badan madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni sax waaye madaxweyne federaalka Farmaajo waxay sabab u tahay marka hore madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni wuxuu dalka Soomaaliya maamulaa qayb aad u ballaaran ayaa waxaa ka jira domestic order iyo governing body maamul duulo ilaa heeraha ka jira waxaa madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni strategically ku xiran Jubbaland inkastoo Jubbaland ay geographically ay kala dursan yihiin haddana strategically waa isku xiran sababtoo waa siyaasadda ahaanba waa isku xiran yihiin marka haddii la waayo Puntland la waayo Jubbaland still way weynaysaa marka haddii aad Jubbaland iyo Puntland maamul goboleed ay ka maqan yihiin wuxuu noqonaa madaxweynihii Hirshabeelle iyo madaxweynihii Galmudug iyo madaxweynihii Southwest oo awalba lagu xamanayay inay u yihiin sub committee fila Soomaaliya marka macna ma yeelanayso mujeeda marka labadan state ee powerful ka ah oo institutionada oo functioning ka ah ayaa loo baahan sadarteed ninka la rabo inuu madaxweyne Farmaajo oo qanciyo oo la macaamilo si siyaasadda Soomaaliya hore ugu socoto waa madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni haddii marka madaxweyne Farmaajo oo aqbalo reality oo la tacaamulo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni hadduu la tacaamulo oo dooniyo xisaabta gameka adaa ku fadhiyee ila qaad oo la qaado kadib waxaa suurtagelaysa Axmed Madoobana waa join gareyna kadibna intaan kale hawsha xisaabta waa qabanaya haddii marka uu iska indhatiro oo waxaa muuqata madaxweyne Farmaajo siyaasadda Soomaaliya waxay ku shaqeysaa aan intana ku qoran tahay inay noqoto compromise wax isu ogolaasho laakiin sida muuqata madaxweyne Farmaajo siyaasadda in wax la isku ogolaado wuxuu u yaqaanaa in la isbaado camal sadarteed hadduu qof la fadhiisto inuu waxna ogolaado waxna qaato wuxuu u arkaa in la baadayo marka hadduu u arko madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni inuu hadduu la heshiiyo inuu baadayo hadduu u arko oo uu dhaho Siciid iska dhici waqtiga ka dhamaha Siciid 5 sano cusub oo haystaa malaha 1 sano ka baxay 4 sano kale oo haystaa siyaasadda asaa uga soo haray marka just a moment si marka madaxweyne Farmaajo marka jida u baxayna marka waxaan siinaynaa way out waxaan siinaynaa madaxweyne Farmaajo waxaa la rabaa inuu la heshiiyo walaalkiis madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni oo dhageysto waxa uu rabo iyo sida uu rabo inuu u shaqeeyo hal kale iyo wada kale oo u furay madaxweyne Farmaajo ma jirto haddii uu taas ku guul dareystana gameku waa la gadoomay markaas laba markaas Farmaajo marka laba mid oo noqonaa marka in ayadoo saan la isu jiidanayo waqtigu ka dhamaado oo la gaaro 8 February 2021 oo uu noqdo madaxweynihii hore ee Soomaaliya sida Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif iyo Cabdiqaasim inuu baxo oo noqdo oo shacbi noqdo iyo inuu la heshiiyo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ama in impeachment lagu sameeyo oo meesha laga qaadabo waa gartay si fiican ku faham haddii madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxda federaalka isla fariistaan oo miiska la wada fariiso waa in la wada hadlo Soomaa haddaan ka waran ku kala baxno cod iyo kala aragti duunaan iyo kala tira badnaan macna male maxaa diiday in cod lagu kala baxo oo ninkan uu kansado 3 maamul goboleed iyo dowladda federaalka 2 maamul goboleed waa laga cod badiyay ninkan saas ma cod ma cod haddii lagu kala baxayo golaha amniga adduunyada veto power lama sameeyay adduunyada waxaa la fiiriyaa political halkan iyo halkaas isku mid ma maya political weight ka la fiiriyaa political weight culayska miisaanka dadka iyo dhulka la maamulaya la fiiriyaa gaalkacyo laga bilaabo ilaa Boosaaso 750 kilomitir ana gaari ka raacay gaalkacyaan ka raacay waxaan ku ka qadeeyay Burtinle habeenkii waxaan ooyday oon joogay Garowe dhowr cishaan joogay waa ka baxay adigu wax ka miisaanka Puntland maya wax ka soo gaariyaan ka raacay waxaan tagay Boosaaso
haddana waa soo jooga boosaasaan gaari ka soo raacay garowaan imid waa ka soo baxay waxaan imaaday gaalkacyo lama kulmin hal checkpoint oo gaarigii aan saaray la weydiinayo $1 oo shilin Soomaaliya dhulkaas marka orderka oo ka jiro iyo maamulka oo ka jiro iyo dawladda ay ka jirto lalama meel dhigayo dad oo miidkooda aan duga karin lalama meel dhigayo marka siyaasadda Soomaaliya Puntland ayaa waxay tahay miisaanka siyaasadda Soomaaliya ayadaa rajixaysa dawladaha xubnaha ka ah dhamaan waa muhiim laakiin miisaanka siyaasadda ee Soomaaliya galabta qofkii raba inuu xaliyo shardina waa la galay qofka Soomaaliya ariya xaliyo siyaasadda Soomaaliya asagoo aan ka haysan okay grow qof xali kara ma jiro just waa full stop cid kasta isu keen golaha shacabka keen baarlamaanka keen maamul goboleed keen garow buka ogashay mas kuma ogol ma kula shaqeynay mas kula ma shaqeynayso haddii kula shaqeynayso go ahead haddii kula shaqeynayn full stop waxaa leeyahay Siciid Deni iyo Axmed Madoobe suuragal waxaa inaysan imaan Dhuusamareeb maxay qoonsadeen inay shirka u tagi laayeen isleeyahay horta aniga waxaan jeclaa lahaa inay yimaadeen waana rajaynaa inay yimaadeen laakiin hadday dhahaan ma tegaynana waa legitimacy سمعي أنا وحن جعلها إني يمادين وأنا رجينا إني يمادين لكن هذا هدي ده ما إيمانين وكسعين سبب مدحوينه كل شركة وسمرة وحك كسو بحاية شو هروق شيء مركه هدي يعني قبل صومالي هدي الله تقول أولده وعرفا إن قلبتكم مرسد المغرب كدين وكفرة ما كيلي كم يليسو already madaxweynihii waa sheegay hadduu Dhuusamareeb tago inuu san go'aan siyaasadeed soo gaarin shalay ayuu wuxuu u sheegay shacbiga Soomaaliyeed marka actually in Dhuusamareeb la aadaba no point wax macna ma balahaba just useless laakiin waxay tahay marka maxaa u rabtaa inay tagaan hadda wax laga soo gaarin that's what I'm saying laakiin waxay ahayd macna waa ku sheegay waxaan ku dhahay madaxweyne Farmaajo siyaasadda Soomaaliya wuxuu u bedelay dareendur horur ma socdo galaan ma socdo laakiin Soomaaliya xukuumada malaha kaadi badane waa loo gogol badiyaa bal ninkaan maadaama oo hadda ilaa laga gaarayo 7 Febraayo political sovereignty Soomaaliya maadaama asagoo uu gacanta ku hayo ama uu yahay head of state Soomaaliya uu yahay ama bulshada caalamka u aqoonsan tahay inuu yahay madaxweynihii Soomaaliya waa in la ixtiraamo inkasto uusan asagu ixtiraamin dastuurkii lagu ixtiraamay asaga madaxweyne fiiri awoodaha uu leeyahay iyo wuxuu leeyahay inta ku qorin laakiin ma ixtiraamayo marka iyadoo la ixtiraamayo waxaan diidaynaa in la dhaw dadka Soomaaliyeed waa qaswada waa fawdaawiyiin madaxweynuhu iyo meel fadhi u tigo marka ilaahay madaxweynaha loo tago laakiin haddana madaxweynaha hadii loo tagi waayo asaa ka shaqeeyay marka yowsan eedin cid kale asagoo aado shala markuu dhahay intuu soo istaago golaha shacbiga u dhahay okay Dhuusamareeban aada go'aana kama soo baxayo waxa aan soo arkana waa inuu kala soo laabana waa u jeedaa inuusan wax macno lahayn safarkiisa waxaa Dhuusamareeb maanta aaday sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir kam uu qayb galin shirkii hore maxaa miisaan inta la ku soo kordhin karaa shirka Dhuusamareeb 3 mayorka magaalada Muqdisho ama gudoomiyaha gobolka Banaadir طبعا gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu ka tirsan yahay xafiiska madaxweynaha marka waa nin la socda madaxweynihiisa wuxuu soo kordhiyaa markii wixii madaxweynihiisu soo kordhiyo uu soo kordhiyaa wax asaga dheeri ah oo keenay ma jirto yani fiiri madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha wasiirka dastuurka hadday raacaan taliyaasha ciidamada hadduu raaca duqa magaalada Muqdisho la taliyaashiisa kulli hadday dawladda dhan ay guurto waa shaqaalihii xafiiska madaxweynaha hadal ba iyagu uma furraba wixii uu madaxweynuhu dhaho bay iyagu u sacbinayaan marka meeyirka waqti isaga dhuminaa isagoo shaqooyin kale u yahay waxaan dhanaa madaxweynaha aaditaankiisa ba waastayna madaxweynaha laftigiisa inuu aadaabo aba waqti dhumise markii dhinaciisa ka dhumaya maxaa ka rabtaa waa gartay marka meeyirka magaalada Muqdisho asal laftigiisa waqti ka dhuminaa madaxweynaha waqtigiisa dhumiyo haaye waa gartay maxaa gaaray shirka Dhuusamareeb haddii aan wax natiijo ka soo baxsan adag u badinayso haddii aan lis afgaran 8 February la gaaro iyadoo aan wax is afgarada dhicin 9 February dalkan seliila maxaa dhacay horta ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaysan dhicin Soomaaliduna inkastoo dalka Soomaaliya
dalka Soomaaliya dadka Soomaaliya iskale waxaa la rabaa inaan anagu dalkeena aan maamulno oo dastuurkan ku meel gaarka ahaan samaysanay isku ixtiraamno oon raacno aan iska rabaa oo aan ogaano siyaasadda Soomaaliya inay dib u heshiisiin ku jirto dalkaana anaga iskale laakiin waa maamulo weyne waana ismaqli weyne sida iska caadiga ilmaha yaryarka ah ila wuxuu walaa tusuf wala xoolihiina hoo dhiibina kuwa sufahada ah wax magaratada ah haddii aan noqono dad aan dalkooda iyo dadkooda aan maamuli karin nimanaa dad noo soo dirsado beesha lixaad oo inta degan safaaradaha degan ogtahay wasaaradda arrimaha dibadda iyagaa noo waardiiyey aeroboortka iyagaa noo waardiiyey tikada iyagaa noo waardiiyey bangiyada iyagaa noo waardiiyey madaxtooyada iyagaa noo waardiiyey golaha shacbiga iyagaa noo waardiiyey I think wasaaradda gaashaandhigga xataa umalaha iyagaa noo waardiiyey magaalada caasimadan iyagaa noo waardiiyey dadkaas oo kula jooga oo waardiyaha ku haya oo safaaradaha leh oo hay-adaha caalamiga leh oo waraaqaha soo qoraya meesha iskama fadhiyaan wayna u jeedaan waana sababta ay warqada adag doraad ugu soo qoreen madaxweynaha inaysan dhicin 8 Febraayo 2011 oo aan 20 oo aan waxba la qaban inaysan dhicin darteed ka hortagid ay ka hortagayaan aysan u sameeyeen taas waa mid anaga nafsadeena waxaa naga rabaa haddaan nahay Soomaali inaan bini aadam noqono gaar ahaan golaha shacbiga ayaga oo aan ka shaqeynayn kuna shaqeynayn rabitaanka dadka Soomaaliyeed iyo dastuurka haddana waxaa la rabaa inay meel iska dhigaan ku darsasho iyo waa sii joogaynaa waxaan leenahay war dadka Soomaaliya waa ku hore idin doortay haddana waa idin dooranayaane kuraasti ka doonto markaad 2 sano oo doorasho oo waxay dhahaan mugtahay doorasho dadban waxaa ka soo dhinac baxday ku darsasho dadban marka golaha shacbiga waxaan leenahay waryaaye doorasho dadban iyo ku darsasho dadban waxaa roon oo sharciyada u dhow doorasho dadban anagoo ka soo horjeeda doorasho dadban laakiin haddana waxaan ogaa inaysan dhicin doorasho hal qof hal cod marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhahay fa ilam tajidu ma an fatayamamu haddaad weysaan biyo aad ku weysa qaadataan gegebeesta Soomaaliya ha boorayso doorasho hal qof iyo hal cod waa sida fiicneed laakiin waa dhici weysa waa in doorasho laga qabtaa Soomaaliya doorasho dadban laakiin la qurxiyay what I mean la qurxiyay to reduce the corruption la shaqalsad in hoos loo dhigo one way or another oo hoos lagu dhigi karo waxay tahay numberka dadka oo xildhibaanka dooranaya in la badiyo iyo in dadka la isu geeyo dad badan la waa sheegeen horena u sheegay haddana waa sheegay macnaha ka soo qaad kursigii halkii kursi oo xildhibaan inay doorato 151 kuraasta in la isu geeyo 3 markaas waxay noqonaysaa 453 ay noqonaysaa halkii xildhibaan marka 453 xildhibaan leeyish wili dad si kara jar laakiin waxay noqonayaan dad aad u yar noqonayaan haddii numberka la sii badana kaba si fiican oo aad dhaafsiiso aad midalan 900 aad gees kaba si fiican numberka dadka dooranaya hala badiyo hana la isu geeyo si meesha looga saaro leerushka si ay u soo baxaan dad u hela fursad iyagoon lacag dhiibin inay soo baxaan marka taas wali way anadar u sameyn karaa doorasho hal qof hal codne aw ujeeda dama idman weligay doorasho kama qayb gelin hal mar anoo dhalinyaro ah oo meel u socdo oo inaan rabo inaan soo cayaro kubad soo cayaro ayaa 87 aan niman guuludayaal ay qabteen waxay dhahan wara istaag waxay dhahan maanta ma codeen waa tii oo hal qofeed waa ay kaxeeyeen degmada howladagan deganay xaafadaas oo meel dholaanta taleex may dhahan baar wax ku agtaan meeshii igeen markii igeeyeen igoo guulasha igoo wada maxbuus camal igoo wada meeshii geeyeen habar meel fadhido kamid ah habraha degmada maaqaan maamo weyn meel fadhido haysata buug iga qorto magacayga iyo tabeele iyo laan iyo waxaan deganahay wax ugu yaqiineen warqaday ii dhiibtay iyadoo labadi guulood ila socdaan ay raaceen waxay dhaheen inta sanduuqan ku rid sanduuq halka xabale waaya oo oda maxamed uu ku sawray marka doorasho seenugada aniga da'adaan hamba doorasho qaadan oo taas ka soo qayb galay ma taas oo kala hadda qabanayna yaani 33 sano ka bacdi taas amal ma qabanayna yaani hadii aniga aan maqlo doorasho hal qof iyo hal coda hadaan maqlo taa waxa igu soo dhacatay oo ay qabteen guuludayaasha ee liigii laanta waxa dhahay xawtaabka ee la dhaha guuluda oo dhahay inta kurid
marka maaqaan haddana haddii mar kale 33 sano kadib haddii haddana guuludo kale qabaha ee haddana uu sanduuqa kurdi dhahay maaqaan haddii xooga kacaanka ma kala maaqaan waxaas wax shaqeynaya wadankan ka shaqeynaya ma waana been wadankan waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed intooda wax garata inay ka shaqeeyaan maslaxadda dalkan iyo dadkan dalkaanu dhibaato ku filan waa soo maray waa taas galabta ka socota maalin kastana saas kuma jiri karno waxaa la rabaa dalkan in laga dhiso dawladdii qaanuunka jamhuuriyaddanu waa jamhuuriyaddii saddexaad waxaa ka horeysa jamhuuriyaddii koobaad oo dadka Soomaaliyeed wax dooranayeen waa la inqilaabay asgar ayaa habeen madow waxay xadeen rabitaankii dadka Soomaaliyeed dastuurkiina waa qaateen kadibna waxay la soo baxeen wareegto dadka Soomaaliyeed qofkay rabaan inay soo xiraan ay dilaan ay maxkamad u sameysteen kadib waxay bilaabeen inay lacag daabacdaan fadlan qaado ay ku kala qaataan wadanka ay boobaan dadka Soomaaliyeed ay beelbeel u qaybiyaan kadibna dalkii ay holciyaan holacaas ayaan ka soo baxaynaa lama rabo mar kale dalka Soomaaliya in la holciyo lama rabo dadka Soomaaliya waa la isku soo tuugtuugay waa la isku keenay walaalo baa la dhahay dalkan iyo dadkan waxay ku jiraan dib u heshiisiin dawladnimo Soomaalina waxay ka dambaysaa si fiican dhigayso dawladnimo Soomaali waxay ka dambaysaa marka wax garadka Soomaaliyeed ay ku heshiiyaan nooca dawladnimada Soomaaliya oo aan u jeedo dastuurkan dib u eegistiisa iyo sida ay noqonayso dawladnimada Soomaaliya sida ay dawladda dhexe iyo federaal isla shaqeynayaan awoodaha ay kala qaadanayaan haday tahay xaq ciidan xaq dhaqaale xaq nabadgelyo xaq garsoor inay ka heshiiyaan dadka Soomaaliyeed bulsho ahaan hadda beel la dirsan ma jirto laakiin dad waxaa jira Soomaaliyeed oo tirsanaya deegaano ayna beeshoodu u badneen hanti ay kuliin in uga maqanta dadka Soomaaliyeed qofkii guri ka maqan yahay qofkii garaash ka maqan yahay qofkii beer ka maqan tahay qofkii goof ka maqan yahay wax alla wax muuqda oo private property ah oo qof Soomaaliya leeyahay waa in laga qaadaa yani qof kasta laga qaadaa oo qofkii Soomaaliya farta laga saara taas waa heshiis dadweynaha la dhahaa political agreement dadka Soomaaliyeed numberka labaad waa in hubka laga qaado dad hubaysan looma sameeyo dawlad numberka saddexaad dadka Soomaaliyeed waa in la tiriyo dad aan tirsanayn oo tiradooda la aqoon oo meeshay u joogaan aan la aqoon looma ka sameyn karo national planning hadday tahay dhisme hadday tahay caafimaad hadday tahay waxbarasho hadday tahay shaqo abuur iyo adeeg bulsho looma sameyn karo numberka afraad dadka Soomaaliyeed waa in loo markay sameystaan la tiriyo waa inay furtaan political parties xisbiyo siyaasadeed oo dalka oo dhan ka furan oo meel kasta jooga oo dhulkiyo nabad ah markaas dalka Soomaaliya laga qaban qaabiyo free and fair election doorasho xur iyo xalaal ah laga qabto baarlamaanka ku soo baxa ayaa wuxuu dhisayaa accountable and transparency government dawlad accountable ah oo dal xisaabtami karo oo shaqaday qabanayso loo jeedo inta ka horeysa oo wili aanan dastuurka aan ka heshiin oo wili aan hubaysanahay oo wili aan tirsaneen oo wili xisbiyo aysan jirin oo aan la qaban karin doorasho xur iyo xalaal aan la qaban karin Soomaaliya waxay ku jirtaa dib u heshiisiin waxaa la yiri inta la guuraa mataaka la guuraa masa tabar waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ka guuri karin tabaraa la guuraa dadka Soomaaliyeed sidii la isugu keeni karo waa in la isugu keeno oo caqligu shaqeeyo madaxweynaha iyo golaha shacbiguna waa inay masaajidka cayaarta ka dhaafaan oo ay mas'uuliyadda lagu aaminay si sax u qabtaan golaha shacbigu waxay golaha shacbi ku yihiin heshiiskan dadweyne waa inay ilaaliyaan madaxweynuhu wuxuu madaxweyne ku yahay heshiiskan dadweyne waa inuu ilaaliyo hadday ilaali waayaan ninna kamana aaba fiicna kamana hooyo fiicna waxay noqonaysaa nin yahow kuma aqoonsani xildhibaan kuma aqoonsani madaxweyne kuma aqoonsani iyo in la isdilana lama rabo saas darteed dib u heshiisiin
wax wada lahaansho wada hadal walaalow sidaasaa loo baahanya